الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. waxaynu ka hadlaynaa darsigii ugu dambeeyay الدرس الأخير oo waxa weeye kitaabkeenii Ilaahay fadligiisa waxa weeye inoo soo dhamaadkii baynu ku jirnaa. wuxuu halka kaga hadlayaa bishii Ramadaan waa la soo soomay waana la soo ciiday. Zakaatul fitri wixii la iska rabayna waa la bixiyay. Haddaba waxa jira 6 maalmood oo aad u fadli badan oo siyaamkoodu sanad la mid yahay oo la yiraahdo 6 min Shawaal baa la yiraahdaa waa 6 Shawaal ayaa la soomaa. waayo 6 maalmood oo aad bisha ka soomaysid. marka carabkanu marinaynaa bishaas waxa weeye Shawaal 6 maalmood inaad ka soonto ayaa sunnah. ka siyaami dahri buu nabigu ku sheegay inaad helaysid waxa weeye soon qof sana soomana oo kale inaad la mid tahay. waxaan marka inuu ka hadli doono xukunkeeda iyo qofkii qala lagu lahaa ma soomi karaayo hawlahaas inuu ka hadlaya. horta bishaasi inay israaxraacaanin oo 6 maalmood isku xijisay ayaa fiican oo sidaas la jecel yahay oo fadli badan xaga cinda Shaafiiciya. laakiin hadda doonto kala gogoyo asbuucba maalin ka soon adeeg kula jiday 6 maalmood inaad soontid baa laga rabaa bishaas saasaad ajirka ku helaysaa. laakiin waxay leeyihiin culimadu haddii aad adigoo sooman oo soo soomay soonka la soo qabsaday inaad israaciso oo adoo aan cuntadii la qabsan aad 6 is dhaafiso ayaamti ciida markaad ka baxday wixii ayaami ka dambeeyay saasa yara fiican. hase yeeshee adoo maalin ka doonto ka soono 6 maalmood inaad ka soontid qofkii ma soomi karaa isagoo lagu leeyahay qalle oo waxa weeye siyaam isagoo ka soo tagay bishii Ramadaan wax hadduu soomo ma laga abaal marinaya waa laga ajarkaasu waa xasilaya. laakiin waxa fiican inuu marka hore waajibka hormariyo maxaa yeelay waajibku waa cala al-fawr si degdeg ah raban lagu soo qalleeyo. marka waajibka inuu hormariyo ayaa wacan hadduu isku niyeysto oo waxa weeye waajibka hormariyo saasa u yara wacan qofka oo ajarkii waxa weeye waajibka in loo degdego u baahan yahay. inaas marka kaga hadlaya sheekhu iyo ayaamo aan soonin lagu gaar yeelo ayna banaanayna uu inoo xusay ahkaamu siyaami 6 maalmaha 6 waxa weeye siyaamkooda ahkaamtiisa oo Shawaal bisha Shawaal ka ahaaday Shawaalna waa la yiraahdaa. fadluha fadligeedu qaala sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu yiraahday man ruuxi saama sooma Ramadaan bisha Ramadaan thumma atba'ahu raaciya 6 min Shawaal bisha Shawaal ka ahaaday kaana siyaamuhu siyaamkiisu wuxuu noqonayaa ruuxaas ka siyaami dahri qofsana soomana oo kale. xukmuha xukunkeedu siyaamu 6 maalmaha 6daas xukunkoodu waa maxay mustahabun waa la jecel yahay xukunkoodu. xukmu man ma xukmu man ruux xukunkiisi waa maxay kaana uu ahaaday calayhi korkiisa ruuxa qadaa'u Ramadaana dheh bisha Ramadaan qalayntiisa ruuxa korkiisa tahay oo lagu leeyahay siyaam xukunkiisu muxuu noqonay faman ruuxi kaana uu ahaaday calayhi korkiisa qadaa'u Ramadaana bisha Ramadaan qalaheeda lagu leeyahay thumma inta kadibna saama sooma 6 qabla al-qadaa intuusan soo qalayn fa innahu isagu yaxsul waxa uu xasilaya ala thawaabiha wala ajar siinaya. halka wuxuu kaga hadlayaa qofkii ajir ma ka helaya 6 haduu soomo waa ajarkii siyaam dahrigi ma helaya hadhow raba qalahiisa inuu kale inuu wato waa helaya waa loo xisaaminaya. laakiin waxa fiican inuu waajibkaada hormariso. siyaamu 6 siyaamu 6 tinde 6 maalmood in la soomo min Shawaal mutataabicatan xaalay tahay mid israacsan bacda ciid ka gadaal ayuu halkan ciwaan uga dhigay. ma shardi ba in ay israacsan la yushtaradu lama shardiyo siyaamu 6 6 maalmood oo bacda Ramadaan ka dambeeya mutataabicatan xaalay tahay mid israacsan lama shardiyo. inma yustahabu waxa loo sunnaystaa min baabil musaaracati fi daa'a in loo degdego waxa weeye albaabkeeda in loo degdego daacada iyo alla ka cabsiga iyo waxyaalaha wanaagsan in loo degdego Ilaahay loogu dhawaanayo baa loo sunneeyaa waxa weeye looma sunneeyo in xiriir yihiin. wasawma soomkooduna bacda al-fidr buu ahaanaya xilliga waxa weeye afurka kadib mutataabicatan in iyadoo israacsan xaalad ayana afdalu fadli badan in israacdo ayaa fadli badan watan dayn soo sheegnayo ina cibaadada u degdegtaa iska fiicano
saaricu ilaa maqfirati min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalardu waaye walaakin yajuusu waxa bannaan lahu ruuxii u bannaan soomaya an yasooma inuu soobo mutataabican xaal ay tahay mid israaraasan aw mutafariqan xaal ay tahay mid kala tagsan labadaba u bannaayey xukmu siyaami sitti maalmaha lixdaa in la soomo idaa waafaqa yowmuljumacati hadday waafaqaan weeye maalinta jumce itafaqa waxay isku waafaqeen ahlulcilmigu calaa jawaasi sawmi soom in la soomo yowmuljumacati maalinka jumce tadawucan xaal uu yahay waxa weye tadawuc iyo sunno uu yahay laakiin shardi baa ku xiran oo idaa wasalahu waa inuu la xiriiro bimaa qablahu wixii isaga ka horreeyey oo maalinkii ka horreysay oo khamiisdaad waa inaad soo soonto aw bacdahu ama maalinka ka dambaysa inaad soomaysido sabtida aw amase waafaqa uu waafaqo sawman soom soomkaasoo kaana uu haya soomuhu mid soomi jira caadatan sida caadada mithlu man ruuxoo yasoomu soomayey oo kale yowman maalin wayuftiru yowma siyaamka nabiyullaahi daawuud oo kale qof soomaya maalina soomaalina afura hadday kaga beegmato caado uu qaban jirayna iyaduna way bannaan tahay wawaafaqa hadduu waafaqo wawaafaqa waxaana waafaqay marka soomuhu soomkiisii yowmaljumacati maalinka jumcuu waafaqay aw saadafa yowmal carafati ama waxay la kulantayba maalinkii carafo ayaa wuxuu noqdayba waxa weeye maalin jumca aw cashuura ama maalinka cashuura sunnada ahay inay waxa iyadana la soomo ayaa jumcu waafaqday halkaa marka wuxuu kaga hadlayaa maalinka jumce cibaado gaara ma lagu gaaryeeli karaa soom ma lagu gaaryeeli karaa may laguma gaaryeeli karo laakiin way bannaan tahay haddii wixii ka horreeyay adoo maalintii ka horreysay aad soo soontay ama maalintii ka dambaysay aad soomaysid ama soom aad soomi jirtay oo caado ku ahaa uu ku waafaqay waaya ama soon sunna oo fadli badan leh ayay kaga aadantay maalinka carafaaba jumco ku aadantay maalintii la soomayey ayaaba waxay noqotay ama maalinka cashuura marka waa lagu ogol yahay laakiin waxaa la diidan yahay waa inaad gaar ugu yeesho halkuu inoo kaga hadlay marka ama limaa rawaa wax laga wariyey limaa shay oo rawaa laga wariyey dartiis inuu karaahaw yahay abu hurayrata radiallahu canhu allah karaali noqdee ana nabiya sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhahday laa yasuumanna yuusan soomin axadukum axadkin yowmaljumacati maalinka jumce ilaa an yasooma inuu soomayey maahay qablahu maalinkii ka horreeyey ama hortiisa aw yasooma inuu soomayo bacdahu waxa ka dambeeyo ah sabtida duusan wadayn maalinka jumce yuusan ku faraliyeyn culimo badan waaba xaaraan bay dheh وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها الله كرها نقضي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وحصوق عليها يد يوم الجمعة مال الجمعة والحال بوصوق هي يدنا صائمة أي صومنت فقال النبي قوحي كوير هذه أصمتي أمسي شلي ما صومتي قالت وحتر هذه لا قال النبي قوحي هذه تريد دين ما دونيسا أنت صومي إنا صومتي قدم بري قالت وحتر لا جمعنا صومنتاي markaasuu nabigu wuxuu yiri faafdiri afur culimadu wuxuu leeyahay marka shay aan xaraan ahay qofka laguma afuriyeen sheegan ma banaana way maalinka jumcin siyaam lagu gaar yeelay ma banaan maxay nabigu gabadhaas uu afriyay afur buu yiraahdaa haddaadan horena u soo soomin hadda maalinta ka dambaysan aadan soomin afur xukmu ifraadi yawmi sabti bisawm xukmu ifraadi waxa weeye yawmi sabti bisawm maalinka sabtida xukun in lagu faral yeelo siyaam xukunkeedu waa maxay marka قال إمام النووي في المجموع وكير هذه يكره وحلا كراسدا إفراد يوم السبت مالك السبت إن لو فرالي إن لو قارياله بالصوم صوم فإن سام لكن هدو صوم وقف قبله وقبل السبت مالك السبت ده هرت هدو صوم وحوي أو ما سب بعده قداش هذا وصوم أحد وكله وصوم معه لجيرك سلام يكره مركز لما كراسده حوي maalinka sabtida iyadana sooma lagu gaaryeeli karaa may laguma gaaryeeli karo wala karaahsada culimada qaarkood waa xaraan bay leeyihiin maxaa yeelay nimankaas yuhuudda iyo nasaarada ayaa qolna xadda weynaysa qolna sabtida weynaysa saas darteed waxa weeye laguma gaaryeeliyo laakiin qofku hadduu cibaado uu soo waday oo sidii waxa weeye maalinkii jimcada oo kale isagoo soo soomana dib markaa waa caadi laakiin maalinka sabtida inaad soonto oo cibaado ku gaaryeesho أصلا كوجاريش أي الذي لحديث الدرتيس بالودي لحديث عبد الله بن بصري عن أخته السماء
سماء رضي الله عنهما إلى يكلا وضل نقضي عن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحير هذه لا تصوموا الصومنين يوم السبت مالك السبت ذا إلا فيما الذي الشيء موي افترض فيما افترض الشيء الذي كفر ليلا عليكم دش إن موي فإن لم يجد هديدا هلين فإن لم يجد أحدكم أحدكين هدوسا هلين إلا لحاء عنبات عنب وحوي حبكيس أما وحوي ديركيس إنه هلو موي أو عودة شجرة وحوي وحلو يقانو جيد علينتيس إنه هلو موي إنت صدوه هلو مركا فليمدغه حلقه حديث النبي وحنا كوشي صلى الله عليه وسلم qofkin yuusan bishaas maalintaas ku faral yeelin oo wixii maalintaas soominina wixii leedan ku faral yeelay maaha hadiise waxaad cuntaan baad weedaanba xuwaad weedin hadii aad heshaanin diirka waxa weey lixaa cinabatin cinabka diirkiisa hadaad heshaanin ama aad heshaanin shajaro caleenteed ama laanteed qofku taas halqo sababtu waa maxay dacni joonka ku jiro qof haduu wax laqo akala aw shariba dee waxa weeye soomkiisii waa buraya soonka ku buriyo haduu hada wuxuu cuno uu waayo saas darteed maalmahaas in siyaam gaar lagu gaar yeelay ma banaana wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa a'lam halkaas kitaabkiinu ku dhamaaday ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa inaan wixii qaladnayna nafiyo shaydaan bay ka ahaatay wixii aynu hada saxanayna fa min allah ilaahay xaqiisa ka ahaatay subhanahu wa ta'ala ilaahay waxa weeye inuu ku anfaco sheekhi kitaabka qorayna ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigiisa ha dhaafo kii waalidkiisa ha dhaafo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nool yahay ha barakeeyo cimri waxa weeye caafimaad ilaahay subhanahu wa ta'ala ku deeqo awlaad ilaahay uu barakeeyo cilmigiisa ilaahay subhanahu wa ta'ala cilmi naafic ka yeelo meel dheer mid gaarana ilaahay subhanahu wa ta'ala ka yeelo inaguna wixii waxa weeye alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ilaahay subhanahu wa ta'ala hayna ka yeelo wixii waxa weeye asii gaarsiin gadon sii gaarsi waxa weeye adallu ala alkhayri كفاعله بالنبي qofka dadka khayrka sii gaarsiyo way soo kale hadaad mid kale u sii sheer garayso oo xogaa siyaamkiisu ka kala yar haleysnaayeen waa faa'iido adiguna ajarka oo kala leedahay isagana kiisa laga nuqsaamin maayo wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh